السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جانالka marka la soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin. Muuqaalkan waxaan rabaa inaan idin kula wadaago maamulka Trump oo shaqada ka ceeriyay 20 garsoore oo dhinaca immigration-ka ah. Arrintaasi saameyn intee leeg ayay ku yeelan kartaa kiisaskii dadkii magangalyadoonka ee faraha badnaa ee maxkamadaha immigration-ka hor yeelay. Sidoo kale waan idinla wadaagaya arrintaasi. Waxaa jirta in sidoo kalena maamulka magaalada New York, maayarka magaalada New York in dacwado musuqmaasuq oo ku socday wasaaradda cadaaladda ay gabi ahaanba tuurtay. Arrintaasi waxa la leeyahay maayarka magaalada New York waxa uu ku bedeshay in maamulka Trump uu kala shaqeeyo maadaama magaalada New York ay sanctuary city tahay in ay xabsiyadeeda loo furo oo dadka dambiilayaasha ay kala soo bixi karaan oo ay musaafurin karaan dadka sharci daradana ay magaalada New York ama gobolka New York ay ka qabqaban karaan. Arrintaasina sidoo kalena waa arrin aan doonayo inaan idinla wadaago. Trump oo isagu dhahayo wadankayga ayaan badbaadinayaa sidaa darteed ma ahan inaan wax sharciga ku xadgudbayo oo wixii aan rabo ayaan samayn karaa. Arrintaasi oo xubno badan oo xisbiga dimuqraadiga aad uga caraysiisana sidoo kale waan idinla wadaagaya. Balse marka hore aan ku bilaabo. Cumrada sanadkan Salama Group waxay idin haysaa adeegyo cusub waxaana ka mid ah adeegyadaas hoteello u dhow labada xaram ee Makka iyo Madiina loogana lugeyn karo xilliyada salaada. Gaadiid aad ku soo booqan doonto goobaha muqaddaska ah ee lagu xusayo taariikhda Islaamka. Baridda qaabka loo guto acmaasha cumrada. Cumreynta waalidka ama walaalka oo geeriyooday ama aan awoodin. Haddii aad tahay qof qaba baahi khaas ah xagga caafimaadka waxaan ka caawin doonaa gudashada acmaasha. Haddaba ku soo dhawow qiimo jaban oo ku raali gelin doona. Wixii faahfaahintaasi dheer fadlan waa WhatsApp number eber 96454927 mahadsanidin. Maamulka Trump ayaa waxa la leeyahay waxa uu shaqada ka ceeriyay 20 garsoore oo dhinaca immigration-ka ah iyadoo sidoo kalena maamulku uusan wax faahfaahin ka bixin sababta rasmiga ah uu shaqada uga ceeriyay. Jimcihii ayaa waxa la sheegayaa in 13 garsoore oo aan weli la dhaarin shaqada laga ceeriyay. Trump shaqaalaha uu bartilmaameedsanaya waxay yihiin shaqaalaha federaalka ah ee muddo ka yar 2 sano shaqada ku jiray. Shaqaalahaasi waa shaqaale si toos ah aan weli loo hayr gareynin sida darteed shaqaalahaasi ayuu bartilmaameedsanaya. Marka waxa la leeyahay jimcihii 13 shaqaale ayaa shaqada laga ceeriyay iyo sidoo kale 5 caawiye oo iyaguna garsoorayaashaas waxay ahayn kuwa immigration judgeska oo maxkamadaha dhinaca immigration-ka iyagu fariista go'aan ka gaara. Arrintaasi waxa cadeeyay Matthew Biggs oo ay ku jireen shaqaalahaasi midowgooda oo la yiraahdo International Federation of Professional and Technical Engineers ayaa arrintaasi xaqiijiyay oo waxay yireen waxay qayb ka ahayn shaqaalihii federaalka ee Trump shaqada uu ka ceeriyay. 2 garsoore oo kale ayaa jirtay sidoo kalena isla sidaas iyagana garsoore immigration ah oo shaqada laga ceeriyay. Ilaa hadda ma cadda sababta Trump uu shaqaalahaasi dhinaca immigration-ka garsoorayaashaasi oo maxkamadaha immigration-ka fadhiyay shaqada uga ceeriyay. Garsoorayaashan waxay yihiin garsoorayaasha dadka wadanka sharci darada ku soo galay la horgeeyo kadibna kiiskooda magangalyadoonka go'aan ka gaaro oo qofkaasi ama magangalyo u ogolaada ama u diida. Marka sidaa darteed haddiiba shaqaalihii maxkamadaha federaalka shaqada laga ceeriyay macnaheedu waxay tahay in kiisaskii hadda ay weli sii kordhayaan. Waxaa sidoo kale wasaaradda cadaaladda oo ay hoos yimaadaan in ka badan 700 oo garsoore oo maxkamadaha federaalka fariista ee dhinaca immigration-ka ayaa waxa ay iyaduna faahfaahin aysan ka bixin sababta 20kaasi garsoore shaqada looga ceeriyay. Marka waxa muuqata in hadda kiisaska dhinaca magangalyadoonka ee maxkamadaha immigration-ka ee federaalka hor yaala ay kor u dhaafayaan 3.7 milyan oo kiis. Marka haddii garsoorayaashii go'aanka ka gaari lahaa kiisaskaasi shaqada laga ceeriyay macnaheedu waxay tahay in muddo dheer ay qaadan doonto oo sanado ah in kiisaskaasi go'aan laga gaaro. Marka dadka haddii maxkamad ay ugu jireen waxa laga yaabaa in hadda maxkamadoodii laga saaro. kuwa kale oo ballan maxkamadeed heli lahaana aysan ballan maxkamadeed helin maadaama la yareynayo garsoorayaashii dhageysan lahaa kiisaskaasi oo hadda qaarkood shaqada laga ceeriyay. Marka hadda waxa la leeyahay 20kaasi garsoore mid kasta oo shaqada laga ceeriyay sanadkii waxa uu dhageysan lahaa kiisas u dhaxeeya 500 ilaa 700. Marka hadda waxay noqonaysaa hadii xisaabta la isku dhufto marka ku dhufo 20 garsoore oo midkiiba 500 ilaa 700 oo kiis uu dhageysan lahaa sanadkii laakiin shaqadii laga ceeriyay. Arrintaasi marka waxay leeyihiin kiisaska garsoorayaal fara badan oo maxkamadaha federaalka fariista macnaheedu waxay tahay in kiisas fara badan go'aan laga gaaro laakiin maadaama hadda la sii yareynayo arrintaasi waxay noqonaysaa in ballamihii maxkamadaha ay iyaguna waqti kale ay sii qaataan sababtoo ah garsoorayaashan hadda waxaa shaqaaleysiiyay maamulkii hore ee Biden laakiin Trump
isla markiiba hadda shaqada ayuu ka ceeriyay. Qaarkood training ayay ku jireen, weli lama dhaarin, tababar ayaa u socday oo sida kiisaska go'aanka looga gaarayo garsoorayaal kaloo khibrad leh ayay la shaqaynayeen. Marka maadaama hadda shaqadii laga ceeriyay, macnaheedu waxay tahay in kiisaskii immigrationka ee faraha badnaa ee maxkamadaha immigrationka ee waddanka hor yiilay ay mar kale dib u dhac weyn uu ku imaanayo. arrintaasina waa arrin muhiim ah oo dadka waddanka sharci darrada kusoo galay loo baahan yahay inay ogaadaan. Dhinaca kale, maayarka magaalada New York Eric Adams waxaan ogeyn bishii September in lagu soo ogay dacwado laaluush iyo musuqmaasuq in shirkadda diyaaradaha ee Turkish Airlines iyo mas'uuliyiin Turki ah in lacagtaasi uu ka qaatay xilligii ololaha doorashada uu ku jiray, isla markaana qaar ka mid ah shaqaalihiisa xitaa guryahooda la baaray, isaga taleefanadiisii laga qaatay, qaarkood waa iscasileen. Marka maamulka Trump ayaa si lama filaan ah waxay toddobaadkan ugu dhawaaqeen in dacwadihii musuqmaasuqa ee loo haystay maayarka magaalada New York gebi ahaanba meesha laga saarayo. Waxaa la leeyahay maayarka New York wuxuu maamulka Trump uu ka ogolaaday in uu la shaqeeyo maadaama magaalada New York ay tahay sanctuary city oo aysan xaq u lahayn inay la shaqeyso dowladda federaalka ah. Hadda waxa uu ku bedeshay haddii dacwadahaasi layga joojiyo waan idila shaqeynayaa, xabsiyada waan idin furaya, magaalada New York dambiilayaasha ku jira waad la soo bixi kartaan, dadka sharci darrada ee magaalada ama gobolka New York ku noolna waa soo qabqaban kartaan. Xitaa toddobaadkan Fox News ayaa Mayor Eric Adams iyo ninka Trump uu xilsaaray arrimaha xadka iyo masaafurinta Tom Haman iyagoo qoslaya ay kasoo wada muuqdeen. Uu leeyahay hadda waa naloo ogol yahay in aan dadka sharci darrada ee dambiilayaasha aan kasoo qabanno gobolka New York. Marka 7 dacwad ooge oo wasaaradda cadaaladda ay horey ugu xil saartay in ay baaraan arrintan oo dacwadahan la socdaan ayaa iscasilay. Waxay yiraahdeen kiiskan waxaa sii wadi kara qof nacasa iyo qof fulaya oo kaliya, sidaa darteed waa iscasileen. marka dacwadihii musuqmaasuqa iyo laaluushka oo Mayor Eric Adams ku socday wasaaradda cadaaladda gabi ahaanba meesha waa ay ka saartay. Waxa la leeyahay marka waxa uu ku bedeshay in dacwadahaasi haddii la iga tuuro maamulka Trump waa la shaqeynaya. Maamulka Trump hore waxa uu yiri sidoo kale arrintan waa arrin siyaasadeed, dacwadaha musuqmaasuqa ee Mayor Eric Adams lagu soo oogay. Marka hadda arrintaasi sidoo kalena waa arrin jirta oo Mayor Eric Adams gabi ahaanba dacwadihiisii waa la tuuray. Sidaa darteed waxaa loo malaynayaa inuu diyaar u yahay hadda inuu la shaqeeyo maamulka Trump soo qabashada dadka sharci darrada gaar ahaan kuwa xabsiyada ku jira. maadaama wasaaradda cadaaladdu gabi ahaanba dacwadahaasi ay meesha ka saartay. Dhinaca kale, Trump ayaa waxa uu shalay bartiisa Truth Social ku soo qoray qofkii doonaya waddankiisa inuu badbaadiyo ma ahan inuu sharciga ku xadgudbayo. Marka Trump waxa uu banaysanayaa arrintan hadda wasaaradihii dowladda oo Elon Musk uu ogolaaday inuu dhex galo oo isla markaana lacaga fara badan oo la qasaarinayay la badbaadiyo. Shaqaalihii dowladda federaalka shaqada laga ceerinayo hadda la leeyahay 75,000 ayaa hadda shaqadii ka tagtay oo ogolaatay emailkii loo diray. 100,000 ilaa 200,000 oo bartilmaameedsanaya maamulka Trump in shaqaalaha federaalka shaqada laga joojiyo. Marka sidaa darteed waxa arrintaasi aad uga carooday madaxweyne ku-xigeenkiisii hore Mike Pence oo isagu soo sheergareeyay qoraal uu soo qoray sanadkii 2010 uu leeyahay waxa loo baahan yahay in dastuurka loo hoggaansamo. Adam Schiff oo ku jira aqalka sanadka oo dimuqraadiya wuxuu yiri Trump waxa uu hadlay sidii kaligii taliye dhab ah oo run ah. Sidaa darteed Matt Ridge oo isaguna ka tirsan Congress-ka oo dimuqraadiya wuxuu yiri Trump waxa uu muuqdaa in uu rumaysan yahay in isagoo ku marmarsiyoonaya waddanka ayaan badbaadinaya in uu wax kasto samayn karo oo awoodiisa wax kasta uu isticmaali karo. Marka ninkan Trump waxa macnaheedu qoraalkan uu soo qoray ay tahay haddii waddankayga aan badbaadinayo ma ahan inaan wax sharciya ku xadgudbayo oo wixii aan rabo ayaan samayn karaa. Arrintaasi ayaa Trump bartiisa Truth Social uu ku soo qoray. walow hadda mudaharaadyo fara badan oo shaqaalaha federaalka oo shaqada laga ceerinayo ay socdaan, garsoorayaal qaarkood ay hor istaageen, laakiin garsoore ayaa u ogolaaday mar kale maamulka Trump in uu sii wadi karo shaqaalaha federaalka in shaqada laga ceeriyo. Laakiin intaasoo dacwadoodo kala duwan ayaa ku furan maamulka Trump gaar ahaan waaxdan uu u xil saaray Elon Musk oo Department of Government Efficiency ama DOGE loo soo gaabiyo oo la leeyahay wasaaradihii dowladda ayay dhex galayaan kadibna waxa ay eegayaan xogtii dadka gaar ahaan IRS-ta hadda waa kuwii USAID joojiyay. Marka wasaarado kala duwan ayay hadda ku maqan yihiin. wasaaradda waxbarashada waxaa laga yaabaaba in gabi ahaanba iyada la baabi'iyo sida hadda uu Trump uu qorsheynayo. Marka arrimahaasi ayaa jira, waan arki doonaa sidoo kale waxyaabaha soo kordha. asxaabi aad iyo aad u mahadsantiin.